taliyaha jabhadda dulmidiidka Siciid Cawil Jaamac Caare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qardho ayaa kaga hadlay dagaal ka dhacay buuraleyda gobolka Sanaag waxaana uu sheegay in dagaalka lagu soo qaaday dad maata korneylka oo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yiri Argabo buuraleyda waxa ka dhacay dagaal falxun oo lagu qaaday dad aan dib u wadin dagaalkaas oo aan jahalahay oo ay soo qaaday system maanta ka jira Somaliland siba generalka ciidanka qaranka Nuux Ismaaciil Taani iyo howlgelintiisa oo u dhashay gobolka Sanaag dagaalkii aan 6 bilood ka maareynayay gobolka Sanaag waa soo dadejisay sidoo kaleeto korneylka ayaa digniin u diray maamulka Somaliland taasoo uu sheegay inay bilaabeen dagaalkii aanu ka baaqsanay waxa arki doontaan in wadooyinka la mari waayo waxa arki doontaan in la filixsado baabuurta dawladda waxa arki doontaan iyadoo kuwa xilka ka haya la filixsado la bidhaansado ayaa argad maadaama ay weerar ku soo qaadeen rag hawshooda wato dhulka ninkii lahaa u halaya waa loogyahay waxa arki doontaan Hargeysa gudaheedu la mari waa laga afturto saraakiisha iyo wasiirada waa arki doontaan insha Allah madalow waayo waa bilowda 6 bilood baan ka maareynay madaxweyne Musabbixi waxa soo dhan uu arkaya uu ka gamay uu ka seexday uu arkaya dagaalka sida loo bilaabaa waa fududahay musow laakiin sida ku dhamaada ma fududaan doonto isagana intaasaan leeyahay jabhadu way durkaysaa baysas badan bay yeelan doontaa ilaa saxaabada la bilaabo oo dawladdan yar ee daciifka ah ee tirtay maamulka yar ee tirtay la maran haraabiyay ilaa ay bilowdo ma bilaabi doono bulshadaydan u tiri doona laakiin maanta way bilowday bulshada waxba ma yeeli doono iyagu baanu bilaabsan doonaa korneyl Caare ayaa shirkiisa jaraa'id waxa ku weheliyay sarkaal sare oo isagu ka tirsanaa gobolka Awdal oo dhawaan soo gaaray jabhadda korneyl Caare ka tirsanaa saldhigga dhexe ee gobolka Awdal waxaan ahaa baar ka tirsan laanta CID-da gobolka Awdal Cabdullaahi Fadil Iimaan mid baan leeyahay waxaan leeyahay ummadda been oo sheegaysa laakiin Ilaahay been oo sheegaysa khabri baan qabtay gobolaas Awdal ay ku turtay shaqadii waan diiday shaqadii kale haystay anoo sargaal ay laga dabeeyay waxaan qabtay nin madaxa dhalay khamriga qabtay ninka wax dhalay nin madaxa dhalay saasa gobolka laga saaray imikii haddana waxaan garab taaganahay ku garab dhimanaya amarkiisa qaadanaya korneyl Caare oo diiday dulmiga meesha ka jira Maxiyadiin Hiirad Kaatun telefishinka SBS magaalada Qardho.